waxyaabaha ugu cusub guud ahaan waddankii oo dhan kaftan iyo dhab waxay doonaysaa noqotee waaye calaw intaadan barnaamijka gelin su-aal baan ku weydiin lahaa dharkani xaggee ka yimaadeen dharkan isu wada shabeelka moodid weli waxaa laga kamarada laga arki maa ilaa surweelkii ayaa ilaa kabihii marka waxay ahayd hadiyad inamo dukaankooda magaalada Burco ay ii soo direen hore ayaan dukaankooda barnaamijkan uga sii deynay hadiyadii markaa shalay soo gaadhay marka hargeysa iyagu meel soo diran ku hargeysa wala Burco ka soo dheeras ya reer Burco lama gaari karo haya marka way ku soo xigtay kala saafilay laakiin waxa weeyaan waxaan markaa maanta u soo xidhay in inamadiina ay arkaan barnaamijka markay daawadaan in dharkii hadiyadda ay soo gaarsiiyeen aan ka qaabilay oo aan u mahad celinay weliba waayahay aan godogallo waxaan ka bilaabi doonaa somalilan iyo doorashooyinkii siday u dhaceen marka waan ognahay doorashadii dhacday oo waxaa la doortay muuse biixi cabdi oo ayuu ku xisbiga wadani weli waa cabanayaan inkastoo guddoomiyahoodu uu yidhi hawsha aakhirkii da u hambeliyey haddana da weli waxaa jira hadalhayn fara badan marka kama aamusi karno weli oo mar kalena waan soo qaadan doonaa marka 14 bishan December ayana ay dhacaan waa marka la dhaarinayo musabixi xafladda sameeyay marka kama haadi karno ilaa inta ay marka meel ay socoto isugu biishbanayso waayahay inagu hadda xisbiyada kama tirsan laakiin faaladeedii ayaan halka soo gudbin doonaa marka ugu horeysa waxaan hambaleynayaa madaxweynaha cusub ee la doortay ee Somaliland Muuse Biixi Cabdi waxaan sidana aan hambaliyo u dirayaa Cabdiraxmaan Cerro aniga iyo sidaan naga reebay oo aqbalay in hawshaasi ay nabadgeliyo ku socoto iyo doorkeeda iyo abaalkeeda leedahay waxaan u mahad celinayaa kala reebi maayde Faysal Cali Waraabe oo isagana aan ugu hambaleynayo hadii jeer wuxuu galaa number 3 saddexda xisbi markay tartamayaan ka ugu dambeeya marka number 3 ga laftiisa inuu xijisto ayaa waa hambalyo kale uu ku dadaalay inuu number 3 ga ku jiro afar marka doorashadii iyo kaftankeedii ayaan galinaa gudoomiyaha Cabdiraxmaan Cerro ee wadani ayaa hadaladiisa mid kamid ah ayaa waxa ku jirtay waxaan ognahay in ay ka qayb galeen doorashadan dad dhintay marka waxaan islamay su'aal baan halkan kaftanka siyaasadda su'aal baan uga gudbinayaa waxaan leeyahay Cabdiraxmaano bal dadkaasi haddii dee adiga la socday dad dhintay ay codeeyeen bal markaa jawaabteeda inay noqdeen iyo inay noo joogaan dee magaalada la iska ilaaliyo Hargeysa daana turaan waliga garigii waa sheekadii sheekadaasi waxay noqotay taariikh xisaab badan leh waayahay doorashadii ma doorasho qabyaalada bay ahayd oo la isu bareeray mise waxay doorasho dimuqraadiyad iyo mabda lagu socday waayahay innaga faalladeenu waxaan leenahay waxay ahayd qabyaalad iyo dimuqraadiyad isku jirto reer Soomaaliya horta in asxaab xisbiya samaystaan oo ay doorasho women vote ay isugu yimaadaan aad iyo aad baan maarta ugu hambaleynayaa waa wax fiican laakiin waxaan koo ugu hambaleynayaa hambaliyada ka reemaaye in qabyaalad lagu doorto wax mar dee qabyaalad aan la deynin hambaliyadeedana waa inaan dee laga dayn dhaleecayna lama soo jeedin karo in qabyaalad ay ku socoto waxaad ku garanaysaa laba qolo ama laba beelood ayaa isbahaystay oo la baxay jeegaanta waa maamulkii hore Siinayo reerkiisa iyo jeegaantaas calawmayna ahayn tii ka soo horeysay roobka markii roobkiisu soo xiro ee jeegaan soo baxdo roobkii aadanaysi rooba ma dii jirin haddii jeegaan timaado waa abaarda waa xaga cirka baa uga fiican laakiin waxaan qiyaasayaa roobkii yada cuni jirtay yeelkeeda jeegaantu midabo isku jirana waa leedahay oo qurux badan marka laga yaabo in marka jeegaanta la leeyahay inay yihiin beero kala duwan oo isu tagay oo mida
waayahay marka jeegaanta la samaystay jeegaanta waxa weeye Siinaanyo meeshuu ka soo jeedo iyo Muuse Bixi meeshuu ka soo jeedo waayahay qoladii kale xisbiga wadani ayaa markaa iyadii weeday isbahays iyo xulfo meel cidla ah ayay ku dhaceen marka in la isugu tegey nimankii ayaa moodaa si qabiila waayahay marka kuwan markay jeegaanta la baxeen ayaan qoladii kale eegayo waxaan u bixiyay ruuxaanta wadani ruuxaanta waxaan u bixiyay gudoomiyaha xisbiga mucaaradka wadani ciro ayaa waxa uu leeyahay dad dhintay ayaa codeeyey marka heestii Michael Jackson ee Thriller ayaan xasuustay hada qubuuraha ka soo baxay ayaa horta aan aagno klibkaas daawasho wanaagsan waxaa kaloo dhacday doorashadan inay suurto gashay in dad geeriyooday Ilaahay u naxariistay ay codeeyeen waa hagaag marka meel ruuxan tahay marka ruuxanta iyo jeegaanta ayaan eegi doonaa itaalkooda doorashooyinkii waxay cadeeyeen waxay ku cabanayeen qolada wadani in laga qaaday oo laga qaaday xoog iyo khiyaamo iyo sanaadiiq hase yeeshee marka xaqiiqda laga hadlo inkastoo ay commissionka ay marar isu yimaadeen waxa cadeyd markaan gudoomiyaha eegno hadaladiisii hadalada iskhilaafsan ayuu keenayay صندوق أما هذا بوق لا يسقط قبتي يسوي قدومي وحليه وحدنا ونكهشين أن قبلي والله يسقط قبتي حدنا وحليه ونقول عليه ونكهشين مركا يلي واحد أو أي صوب بندقين أو لا يسقط قبتي أو وضني يأكل مية وبنا كرسول صباح ميتر لكن إيانا وحنشك كتيرين إن كل مية أي استعمالين أودي دوده oo dhinacii dhaqaalaha iyo dhinacii khiyaamooyinkaba tactics fara badan ay isticmaaleen marka waxaan eegay labada nin ee tirtamaya ama labada xisbi sidee bay khiyaamo intaa la agday waddan ugu dhici karaysaa waxay ugu dhacday markaa xisbina mid soo diyaar garoobay ayuu ahaa sanad ka hor ilaa 2 sanadood ayuu inuu madaxweyne noqday Muuse Bixi plan A iyo plan B wuxuu plan A iyo B haddii tani dhicooda laga adkaado xagga codadka xaggee wax ka dhifan karta iyo lacag siin karta waxaas oo dhan qoladan kalena wadani codka shacabku bay aaminsanayeen codka shacabka plan B ma jiro codka shacabku waxay u keeni karaan waxay u aamineenba calamada jaalaha faraha badan iyagu maryaha iyo dadku dhan way idinka ubisay bar haddii taasi dhici weydo maxaa ka dambeyn doona marka meel waxay dhigtaan in dadkii la jiro wasaas runtii dad badan baa la jiray dadkii dawa la qaatay laakiin dadkii ma laga khiyaameyn karaa taasna ku xisaabtan isbedeli karaan minidka ugu dambeeya kuma xisaabtamin waxa jira dad fara badan xisbiga wadan u codeyn lahaa oo kaalarkooda iibsaday minidka ugu dambeeya marka balan B ma jirin marka qoladan kale ee kulliye balan B-ga oo shaqeeyay okay marka la jafayo oo dal tartamayo alliance xulufa la sameysanayo qabiil baa la sameysanaya lacag baa la isticmaalaya wax kasto la isticmaalo marka guushi meel badan imanaysa guushi marka kulliye helay Muuse Bixi ayaa marka codkii loogu dhawaaqay haddaba daldalooyinka helay qoladan wadani ayaan qaarayna number 1 waxay la yimaadeen gudoomiye jilicsan oo hadalkiisa hadal nool aan lahayn oo imika hadal nool muxuu yahay ninbaa marka la dhaco ninbaa imika lacag kala carray marka ninkii lacagta kala carray sida aad igu sheegaysid ayaan garan karayaa inaad serious tahay iyo inaad aan dan ka lahayn marka haddaad igu tira cali waran oo fahmay midda markii lacag igala carray badan serious matid laakiin adoo qiiqa baxaydan ku imaado waan dareemayaa xanuunka ay ku hayso lacagta laga carray marka xanuunka in doorashadii dhammayd laga qaado uu ku hayo ciro xanuun badan ma maahan si wada dabacsan buu isaga lahaa isagoo dhoola cadaynaya iska dawxiyaanada aqbali mayno haddana nays dhow buu war wixii iska aqbalayo moogta marka horta ninkaasi nin gudoomiyaha xaggiisa waa laga haystay
gudoomiye noolnool lama shir iman niman iyana faataa dhuglayaala oo ku hareereysnaa oo shafka u garaacayay iyagana codkoodii la iman oo iyana codkoodii reedahoodiiba umay teginba way hoosaasin bay taas marka way kala beela duwanaayeen moogtay beelihii ay ka kala yimaadeen umabay teginoo codba kamay soo qaaday maxamed biixi baa ka mida xirsi baa ka mida haddii iyo qaar kaloo badan jirdaa ka mid jirdi baa ka mida ina jirdi reerkiisa kulmiya ugu wada shubeen saadama xirsi reerkiisa kulmiya ugu wada shubeen maxamed biixi reerkiisa kulmiya ugu wada shubeen markaa saddexdaa nin iyo qaar kaloo badan iyana ninkaa way gabeen way la hadheen waa tay soma waxaa isaguna la sii hadhay gudoomiyaha xisbiga ucud oo faysal cali waraaba ah waanu soo noqon doonaa isaguna uu hoosaasiyey iminka nin markaas diraysaan ka dhexe kudaa ka daadana ku yar badnay oo lagu qabadsiiyo waxaa la yidhaha hoosaasi marka isagu in la doorto meesha ugu imanay in qoladan wadan la rido ayuu meesha ugu yimi waxaan tusayaa isagoo leh aad baan ugu faraxsannahay in isbahaysi xulafadii ay jebisay xisbiga wadani daawashadaas waxaweye haddaan nahay u cudnahay waxaa la yidhi berigiin ay dagaalamayeen bershiyanka iyo roman embayerku suuratu rome markay soo degto ogti waxay u helisay musa ku helinaya rumaniaska bershiyanku waxay dabkay caabudi jireen marka hadda anagii markay noo noqoto kulmiye wadani kulmiye isku ahli kitaab baan isku nahay wadanna wuxuu hadda soomaali weyn marka guusha waan la leenahay waa inqalabta rome suuradii oo kala weeyey insha allah waa markaa anagu guusha somalilanderska waa la qaybsanaynaa mar haddaynu jebinay xisbigii platformkiisa aynu gelin xog ku socdo iyo jihaad uu socdo waxaan leenahay islaamaha ka soo qaylinaya london south hall hagbad way iska dhammaanaysaa ingiriiska urursan jirteen dalkiina ha iska xumeena baan leenahay marka faysal dhinacan kulmiye ayuu ahaa doorashadii horta guud ahaan sidaas u dhacday haddaba haddii uu qancay gudoomiyaha wadani xisbiga intiisii kale ma qancayaan way su-aashu xisbigii wadani horta jiirada uu galay si usoo noqday waa adag waayo xulifadan jeegaanta la ydhaahdo haddii ruuxaantu aanay xulifo kala helin iyaduna mid soo noqon kar mayso 7 sanadood buu muuse haysanaya 7daas markay dhammaato 5 sana la doortaa qofka iyo 2 loogu daro waa 7 markuu dhammeeyo wuxuu u dhiibi doonaa jeegaanta kale dhinaca kale 7 kale aduu dee 20 sannadood qodob ruuxaantu ma soo jiirayn karayaan marka ruuxaanta 2 arrimood ayaa la gudboon in ay la yimaadaan isbahaysi iyo in ay la yimaadaan sida jeegaanta isbahaysi marka la yimaadaan taa la iman waayaan waa inay la yimaadaan hanti iyo dhaqaale jeegaantu way ka hanti iyo dhaqaale badan tahay ruuxaanta shilba ma hayaan marka xanaaqaana xamar bay tagaan oo dee mushaar caadi iyo xisbiyo waxay ku biiraan xildhibaanada laakiin dee taasi dhaqaale ma hayan marka waxaa u dhadhowdahay gudoomiyaha xisbiga wadani ama in lacag xaala la siiyo oo la yidhaahdo waxaad qaadataa $5 milyan maadaama ay kaaga baxday lacag badani oo dee dhiikari waxaana kugu dhicin ama in haddii la bixin waayo lacagtaasoo ninka hadda xaal la siin waayo inuu noqdo wasiirka arrimaha dibadda ee dowladda federaalka soomaaliya intaasaan kaga gudbina faysal baan in yar ku noqonaya faysal doorasho uma iman waxaa jiray nin reer buuhoodlaa ayaa ganacsigu ayaan gelayaa buuri marka ganacsigii buuhood wuxuu ka soo qaadaa 10 neef adhiga 10kaa neef wuxuu soo siistaa $15 deetana burco iyo caynaba iyo dhulkaasu geeya isagaa 15 ka soo bixiyey 10kii neef wuxuu sii siiyaa $10 muxuu ka faa'iidayaa marka shan buu khasaaray wuu noqdaa uno 10 neef kuwa keenaayo oo $15 soo siistay 10 buu ku siibiyaa markii waa laga iibsadaa suuqiisu waa buubi markaa laakiin lacagtu khasaarayo ma garanayo dabeetana ninba waxa ku yidhahdeen wareedhe
dee xisaabtami mayside $10 waa soo siisatay $15 waa soo siisatay tobannood ku sii iibisay marka neefkiiba calaa neef 5 baad khasaartay marka wuxuu yidhi wanaga dooqsantiin anu meeshan dee ganacsi iyo noqo caan iyo waxa uma iman meeshan xarakadu maad uga dalle alxaraka lahaa baraka waa tiibu ku jiraa faysal xaraku buu ku jiraa ya khasaaro ku jiraa khasaare ay jirto laakiin dad khasaare dareemay ma ama dareemaya waa markii saddexaad ee uu dhaco waayahay marka isaga awliyo ma dhirana ruuxaantii markii qolaas qaad isaga xisbigiisu waa keligii waxuu magac u bixinayaan waxaan leeyahay marka Puntland arrimo fara badan ayaa ka jira dekada magaalada Boosaaso oo la isku hayo oo shacabka iyo DP World ay aad isku hayaan ayaa jirta waxaa jirta Cabdulla Maxamed Algaas oo isaguna ku noqonay Ethiopia meesha ma yaa ابنك بنك wax loogu daray ma lama sixrinay waa meel aan Cabdulla meesha wax ku ogyahay aad buu u tagtagaa waa mid dantiisa garanaya waa dantiisa ku jirta marka hawshii ayaan eegnay waxaan Ethiopia lagu noqonay Ethiopia dekadan DP World ay iibsatay 30 sanadood ayayna kaalinteedii barata marka heshiis waxay soo qorteen in 14% la siiyo dakhliga soo galiya dekada ti berbero way ku lahayn Soomaa ti berbero 9 bay ku lahayn tan Boosaaso aan weligeed boo iman 14 in la siiyo baada marka baadaas waa 40% baada marka ninka saxiix karay ogolaanaya ee DP World ugu dhaxeeya ee deegaankiisa madaxweynekii waa Cabdulla Maxamed Algaas ya bal horta waxaan ku tusayaa Cabdulla aad isugu dhajinaya ra'iisul wasaaraha Ethiopia oo si شاروا هيسكن كانيان تصور كان هرتا عن إنجاز marka 14ka Cabdulla hawshu talaxay Ethiopia in loo ogolaado interestgeeda 14% oo dadkan shacabkaana loo raali galiyo bal shacabku sidee u kacsan yihiin aan video clip yar in daawsiyo shacab araysan baanu nahay kalluumaysigoodii dekadoodii gaal ku haysto baanu nahay waxa weeye dad buu lacag ka qaatay annaga waxayagii waa cidla carruurteedii macluul baa laysay dadkayagii macluul baa laysay 20 beri maanu ka lixin wax ka laxay ma jiraan wax dabjitay ma jiraan dekadaasaan qutul daruuri ka doonan jiray aniga oo magacayga maxamed mire saalax la yiraaho aad iyo aad baan u liidnaa hana la kaabto ganacsatada maanta waxay tageen madax dhaqameedyada reer Puntland ama uwaasyada ayay u sheegayeen inaanay ogolayn in khidmadda dheeraadka ee la saaray dekada aanay bixinin waa ganacsatada midaysan qarlay tageen gobolka Karkaar dabeetana odayaashii dhaqanka ayay la xiriireen markii dawladdu u caawiyeen dekada qiimo fara badan ayaa la soo saaray dawladdu ku soo xidhataba waana sheegnay 17,000 I mean 12,000 ilaa 13,000 oo dollar ayaa halkii dooniba ay markay soo xidhato laga doonaya halka berigii hore laga qaadi jiray 2,500 ilaa 3,000 oo dollar waa farq aad u ballaaran ninka galad dekada waxaa laga qaadaya khidmad gaarisa $5 qofkiiba haddii aad dekada iska gashida waayahay haddaad gashida waayahay haddii aad waxaa taa ka sii daran haddii aad ku dabaalatid badda waa $5 dabaasho 150 kilomitir oo xagaasa 150 mayl oo dhinacaasa iyo 150 mayl oo dhinacaasa kuma dabaalan kartid xabad kalluun kama qabsan kartid mana daawan kartid xitaa wuxuu soo galay masuulka marka doonaysa soo dabaalatid oo boosas joogtid way dacwada ay tagtaa xaafuniyo ilaa dabaash baa la isku haystaa taas ayaa ayna halkaa ka taagan waayahay dhawaan
ayay wafdi fanaaniina u soo direen puntland gobolka sanaag sidii aanu sheegnay fanaankii madaxtooyada toddobaadka hore kusoo qaaday fanaanka madaxtooyada cabdirashiid ayaa wuxuu dhigay tuulooyinkii gobolka sanaag dhagaxyo been ah oo uu leeyahay waxbaa laga dhisaya dhagaxan dhagax dhigid siyaaya ilaa berbera ilaa laas qoray intuu maraya oo dhan ayaa dhagaxaadii ka buuxdaa uu dhigi jiro haddana siyaani labaduba hadhay uu ka tagaya shaqadii halkaa kaga quuso marka dhagxaantani waa dhagxaan dadka lagu madadaaliyo inta isu soo baxaa la idhaahdo ayunba halkan sabadiyo la keenaya iyo ciidii marsaada dhagaxii u horreeyey ayaa la dhigay ee dhismaha waaya dhagxaantii baan eegaynaa 7 dhagax ayuu inankaasi bilaabay xingalool carmaale baran shimbiraale iyo qaar kale badan oo tuulooyin degmooyin marka maxaa ka dhisayaa buu leeyahay taasaa ugu daran wuxuu ka dhisayaa saldhig dadka lagu xidho 7 saldhig weliba ma maqashay muskuul iyo dhisa iyo ya waliba dadka marka hore magaro waa lagu xidhi jiray allah dadka markay dambi galaan may waxaan sidii gobolkan sanaad baa markay dambi galaan dadka inta la qaada garowe lagu xidhi jiray marka ay jeeshi garowe ayaa waxay yidhahdeen nimankan haloo sameeyo meel u gooni lagu xidho 7 saldhig ayaa markaa loo dhigayaa laakiin waxaan u sheegnaa xaqiiqda dhabta siyaasaddu 7 dhagax ilaa qiyaamada isku saldhigna laga dhisi maayo saldhiga ay ka dhisayso 7 saldhig ay ka dhiseen puntland goboladan 7 koosaradood timir bal hawgeeyaan taasa hawleeyahay marka eeg waa beenta iyo riwaayadaha waxyaalaha aan la yaabo waxaa ka mid ah ee ummadda Soomaaliyeed laga dhaadhicinayo waxaa ka mid ah gudoomiyaha gobolka Sanaag ayaa puntland nin baa magacaaban gudoomiyaha gobolka Sanaag ma tigro Sanaag garow jooga gudoomiyaha Sanaag garow ma yartis ka fadhiyo oo leeyahay halka mushaarka ku qaado waxa kale oo sugan garow fadhiya gudoomiyaha gobolka ee la sacanood ma la sacanood ku wareey kara halkaan buu dhex fadhiya labada minimati karmashan marka maxaa ummadii loo wareerinaya oo mushaarooyin beena oo dad badan ay u baahnaayeen kamida mushaarka hinda beegahay ha marka iyadoo waxa soo dhigi jiraan ayaa haddana la oranayaa dhagxaan la dhigo ayuu dhigay waa dhagax dhig ama Cabdirashiid waxa la ficnaydba mar dib meesha loo soo diray dadkiisii uu yimi inuu 7 heesood u qaado niyadu dejiyo xingalo hees amaana oo puntland mooyaan wax kale ma haysano dadku u soo gal lahayd waa daawan lahaa baran mid kale saar lahaa puntland dadka ay jecel yihiin ay u dhoofilaadeen waxaan leeyahay anigiyo hooy heeladayda hankaygiyo himiladayda halbeegiyo aragtidayda haddii madaxweyne hiili haddii madaxweyne hooli haddii madaxweyne heegan hoggaankeennii horseeday puntland waa taa hagaagtay hobey islaam hada dhagxaanta u dhigay islaamaha birta jiray iska tuuray ya intaasna waa taa xubintii dambeysay ee dhinaca qoyska ayaynu eegi doonaa maxaad u maansantaa maanta inuu qoyska ku soo qaadan karno calo qoysku sidiisa markuu is qabto aniga fikirkayga labada qof markay is qabtaan haddii sheekadu labada qof ku ekaato waxaa laga yaabaa inay xal u la helo oo iyagu dhexdooda xal helaan laakiin haddii qof saddexaad soo galo barnaamijka isaga gurigaasuu ku daayo yasiir maxaa adna qoyska dirka qoyska xagee ka hadala
qoyska waxaan ka hadlaynaa dhibaatada ka jirta waliba qurbaha qurba joogta horta ay u kala fog yihiin horta labadiinaba dee xaasile baa tihiin oo yara babaqaysaane laakiin anaa hawlaha soo bandhigaya anaa ismiimeynaya okay isku dirka qoyska inagu waxaan doonayaa in qoysaska laftu aynu hagaajino inta qurba joogtaa in bal horta ay saldhigaan waa kuwan dee sabaynaya oo laysku wareero furinkii aad batay waa kuwan dee ciyaalkii iminka gabadhii baa waxay dhalaysaa 8 ciyaaloo midaba qaarad buu ka yimi markii horena waxaa la odhan jiray nin hebel la yidhaahdo ayay gabadha wax u leedahay 8 marka iminka xilli lagu jiro ciyaalkeedu mid waa reer baydhabo mid waa reer hargeysa mid waa reer baraawe mid waa reer xaafuun mid waa reer jabuuti ya marka waa dawlad iyadii baa maamul goboleed ayay samaysay marka waxaan eegi doonaa bal horta labada isqabtaa kuwii hore isfure kuwan isqaba in ay noqdaan kuwo adag oo qoyskooda dhista waxaynu soo jeedin doonaa barnaamijyo tilmaamaya midnimadooda iyo wanaagooda inaguna wanaagooda ayaa inoo dana waayahay hal sheeko ayaa marka hore idinka dadweynaha idiin soo gudbin doona oo isku dirka tilmaamaysa laba nin oo dhalinyaro saaxiiba oo reer hargeysa ayaa waqtigii carabaha la tegi jiray ayay sacuudi arabiya iyo imaaraadkii dhulkaas u dhaafeen marka waxay shaqooyin ka heleen meel shidaalka laga qodo oo badda ah 3 biloodba fasax ay heli jireen lacag fiican oo mushaar loo qaadan jiray marka labadii wiil dhalinyaradu markasta hargeysa dhowrkii biloodba ayay tagaan mid waliba wuxuu dhistay guri dabeetana mid waliba gabadh qurux badan ay soo guursay waa laba inanoo saaxiibaa oo isla magaalo ahaa oo isku meel ka shaqeeya oo aada isu jecel oo shaqarkaa iska dhunkada beriga may jirin xawaalado mana jirin telefoonno mid marba kii dhoofaya ayaa ka kala fariin iyo waraaq iyo lacag iyo hadiyadba uu usii dhiibi jira waxaa dhacday markaa dadku dawaa kibraa waa laisbedbedelaa mid ka mida baa fasax qaatoo tegey dabeetana gabadhii ninkii kala qabay ee saaxiibkii dumaashidii baa nidhahdaba ayaa u timiya ninkii dee ka waraysatay marka awal wuxuu odhan jiray ninku waa fiican yahay sidiisii shaqada halkii bay joogtaa markan wuxuu is yidhi reerkan bal madaxa isu geli shaydaanku dib meel baa jooga gabadhii meel goonidaysa wuxuu yidhi wallaahi ninka waa iska fiicnaa kow dheh laakiin beryahan hawshiisu sidii ma qorxume walba adaa war hayee ii waran wuxuu yidhi wallahi anigu waana kala teliyey laakiin ninkii gabdho iyo waxbuu yaro barbartay gabadhii muraadadaa jabtay waayo ninkan waa saaxiibkii lillaahiyadii ninka oo ay ugu noqonayso ma jirto gabadhii markaa aad buu xanaaday uu dhaafay ninkii kale ayaa yidhi ka war xaaska wuxuu yidhi caaddas mariso uu ku soo saaranaysa aad buu ficnad kiibaa iska shaqaysto xilligiisii markii la gaadhay ayuu fasax qaatay marka fasax bidii 2 bilood bay qaadan jireen wuxuu tegey gabadhii dee dhinac kale ah oo salifaada iyo xanaaqa iyo dagaalka ka muuqda waa inaba in naxariiso ku soo weyn dabeeto arrintii buu dhabagalay maxaa jira marka gabadhi waxay tidhi iniga waa tashatay warqadeediis maxaan soo kala dhex galay hirig wuu isku waray marka labadii bilood ayaa ninka waxay kaga dhammaatay odayaaliyan iyadii magaranaysa xaalsi fasixi wuxuu ku dhamaystay hasal ergo iyo dawareer iyo wada hadal aakhirkii naagi ninkeeda dee sirta kama qarisee farti ka saartay in saaxiibkiisa yahay dabeetana taa dambe ayuu qaadan waayay warma ninkii aad aamintay ee saaxiibka ahaa ayaa sidaa yidhi adigu se gabadh yahay maxaad ninkaa warkiisa u qaadatay waxaan warkiisa u qaatay dee laba nino saaxiiba oo aan waxba kala qarsan bahayn gabadhii ninkaasi 2 bilood ayay ku qaadatay inuu kharashii dayn galo oo hawshaas uu sallaxo uu iska tegey isagoo ceel qaba dabeeto wuxuu sameeyey arrin adag oo aan cidi hore u samayn warqad buu soo qaatayoo wuxuu qoray isagoo hebel hebela isaga ma hadda saaxiibkii magaciisi lagu yaqaanaa magaciisi wuu qoray waxaan 2 dalqadood ku furay xaaskayga heble hebel ila xaaskiisa wuu yaqaana magaceedee marka argoosim ku jira meherkeedii oo intaasoo kun oo doolarina lagu ogaa bergee oo anigaa soo raaciyey lacag xawilaada ayuu soo raaciyey iyo warqadii xawilaad caraba ayuu u keenay oo berigaa shaqayn jirtay
kuwii baa gabadhii u geeyey ta loo geyn hadda xaaskiisi maaha waa dumaashidii waa ninka wax ku diray xaaskiisa furaya isaga ninkii iska dhigaya soo lama socotaan gabadhin baa dee loo keenay xawlaadii iyo u eegtumo oo 2500 oo meherkeedii iyo 2 dalqadood warqadu maxkamad baad muddo ka soo baxday timirtii iyo seeftii Sacuudiga ayaa ku sawiray shaabadii oowna afka carabina ku qoranta in buu loo akhriyay wallaba lu siiyay laba tigid meherkaagina waa kan gabadhi marka ma oran karto warqadii waa veeg waayo ninka magaciisa uu ku qoran yahay meherkii uu ku qoran yahay 2 dalqadood waxa ma maqla ha ma nin baa lacag soo dir lahaa aan jirin 3 shuhuud oo soo qortay telefoon qof kale loo diro oo ormiya sameysay ma yaal markaa reerkooda waa tagtay warqadii waa akhri ma soo gudbay alaabta soo qaad shandadeeda bay ka qaato oo ka hulash marka gabadhaas ninkiina ma oga xaguuga dabeeto 3 bilood kadib ay muskana oo ku guriga tagay gabadha aaway jaarkii laftiisa waxa ku leeyahay gabadheedii xaaska aaway xaaskeedii war maxaa dhacay waa ninki baa wareeray wuxuu sheegay gabadha soo furma maaniga ha war goorma furay war iska tumaaniyo oo saamaba xaq buu soo socdaa dhayso waxaad sameysay wax qurux badan gabadh miskiinada oo halka ku joogta ayaa warqad u soo xitaa yani inta timaadid loo qooriyay gabadha ku nacay 2 bilood ayay ku qaadatay inuu dhaar iyo odayaal u yeedho labada dhinac kitaab oo bakaare qayira oo baarintan eega arinta dhamaan buu wadi gabadha la kari waay ninkii kitaab jaamacay ka nibur dadna kitaab buu maray warqadan inaan lacagta marka waxa la yaabay oo leeyahay waa ay ninka 2500 oo dollar kaftan iyo ciyaar u diraya roodana ku sag ninba maalkiisa ku bixiya wardan adiga hayna wada ogtahay leeyahay sheeg oo ninka uu saaxiibkay uu gartay la falu shiriyoga ninkaas markaa uu noqday waana ninkii fidmada markii hore bilaabay dabeeto ninkii shaqadaad waa shaqo dhaba maaha shaqo kaftan ninkii oo meel fadhiya oo turb ciyaaraya ayuu u tagay dabeeto mindi ayuu ka geliyay caloosh inkastaan uu dhiman oo dhaacmay kiina inta la xiray ayaa dabeeto la musaafiriyay kiina waa la shif inta cusbitaal geeyay ayaa la dawiyay sheekadu waxay ka tilmaamaysaa in mararka qaarkood isku dir dad kale ay burburiyaan qoysas oo waliba ay dhaawac iyo dhimasho sidoo kale halis ay keen karaan waa lagu yaroogaay rag nafsi baa mashaakil isku dirka horta dumarka wax badan ba aad la isaga saaraa ficilada inta badan iyo aad dumarka loo jeedo rag baa qorade haddii ay ku waranayaan wallahi daciifnimada tilmaamaysa marka dadka marka gabadhiiba u soo diraya fariin uu leeyahay xilligii lagu furayay baa soo dhow marka qofka dumara waxaad doonaysaa isku qabto laakiin ninkaagii baan kugu diri karaa ama ninka in lagu yidhahdo xaaskaaga baan kugu diraya oo qof dameer lagula soo fadhiisan bay waa mid aan biniaadamnimada ku fiicnayn diintana ku fiicnayn marka isku dirku badriyo rag iyo dumar kuma aan xidhna imika rag markaan runta sheegno hadda raggaa ugu badan badee marka qoyska Soomaaliya waxaan ka codsanaynaa marka rabnaa waxa weeye in marka ugu horeysa ay isku kalsoon labada isku kalsoon moogta wax ma dheystaan lama soo geli karo midda kale qofka had iyo jeer war qof ka qaata ma dhegeystaan qofkaas war baa isagana laga qaadaa ninka war kuu keenay adna war buu ka qaaday laakiin qofka warka kuu keenay haddaad marka hore iska celisid kuwa inna maayo kaamana qaadayo marka shifto marka barnaamijkeena ninkana ay warka ay keenay absolutely barnaamijkeena waxa uu jeednaa weeye in dadka warka qaada ay yihiin kaalin weyn ay ku leeyihiin burburka qoysaska marka mid walba saantiisa hayda bal dhinacaaga yaan laga soo gelin anigana dhinacaaga waa arintaasi waa arrin adag Allah naga shartay waaya barnaamijkeena intaasi ayaan ku soo koobayaa maanta badro baad calay u maadsan tahay yaasiin ducaale aad iyo aad waad noo maadsan tahay abshir aad iyo aad waa u maadsan tahay kamaramaanka dhammaantayo waa bahda kaftanka siyaasadda oo idin leh sidaa iyo kulanti dambe oo xiise leh